shir jiraayid oo si wada jir u qabteen balasaabka gobolka sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo sidoo kale maayarka degmada Laascanood ayay kaga hadleen qabsoomida shalay xuskii 18 May oo ay sheegeen in shacabka ku dhaqan magaalada Laascanood ay wacdara ka dhigeen munaasabadaas. waxay kaloo ka hadleen rabshado yar oo isla shalay ka dhacay magaalada Laascanood. waxay sheegeen in ciidanka ammaanku ay kala eriyeen dadkaasi oo ay sheegeen inay soo abaabuleen dad diidan horumarka degmada Laascanood. maayarka degmada Laascanood ayaa ugu horeyn ka hadlay deblay hubaysan oo xalay rasaas la dhacay albaabka hore ee aqalka dawladda hoose iyo sidoo kale saldhigga wadnaha oo uu sheegay inay baxsadeen ciidamada boolisku wax khasaare ah inuu soo gaarin. waxa kala dhacday xalay in dad kaadaynaya ay meel yar rasaas ka rideen oo xarunta booliskii wadnaha iyo meesha la dawladda hoose cid wax ku noqotay ma jirto. xaaladdu waxay degan tahay ciidamada boolisku waxay sugayaan wax dhibaato hadda ka jira ma jiraan. dadweynaha waxaan u baaqayaa degan magaalada Laascanood nabadgelyadu danbay idin tahay dhibaataduna ma wacna in dhibida gaadho ma jeclin idinkuna dhibaatada magaalada ka daaya. waxa kaloo aan aad uga xumahay laamiyadii cusbaa ee la sameeyay hadda in dab lagu qabtay shalay ama taayir lagu gubay. Laascanood waxaan rabnay inaan ka dhigno meel wada laamiya meel wada dhabbaa bilic leh. haddaad la dagaalantaan bilicdii oo laamigii gubtaan waa wax dhibaato weyn. dhulka in lagu ciyaaro maaha, in la burburiyo maaha, in isbaal khasaariyo maaha. waxaan leeyahay arrinta laga digtoonaado ha laga joogo oo la dilay hala dhawo. sidoo kale balasaabka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dadka nabadgelyo darrada ka wada magaalada Laascanood aysan u joogsami doonin howlaha horumarineed ee ay ka wadaan gobolka Sool oo uu sheegay inay yihiin dadka xun horumarka. sidoo kalena wuxuu beeniyay hadal ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Puntland oo sheegay in shacab lagu laayay magaalada Laascanood. saakanaga diyaarnay gudoomiyaha markaan shaqeey shalay waxa ka dhacday magaalada Laascanood xafladii ay dhimay amreen idinka gudbiyay markastoo laga daawadayna waxay qirayaan bulshada reer Sool iyo bulshada kale reer Soomaaliland been xafladaha qiimo badan oo shalay markii ugu horeysay lagu qabtay intii Soomaaliland jirtay stadiumkii Cabdi bil Cabdi ee aad aragteen dadka baaxadda leh ka soo qayb galay. runtii arrintaas may farxad gelin dadkii wax tabanayay diidanaa systemka iyo dawladda Soomaaliland waxaana abaabuleen inay mudaharaado iyo weeraro ay ku soo qaadaan magaalada kaga jawaabaan si warkaas warkan uu balance gareeyo ama uu dhigmo. nasiib wanaag shalay tole wax weyn oo magaalada ka dhacay jira leenahay xalay tole waxa jirtay nimankii naqaatumo oo isuursaday xoogaa ciidan la soo galay magaalada dhalinyaro laba gaari la soo galay iyo dhowr nin inay isku dayaan haddana inay xarbushaan iyagoo magac ka doonaya meel bay ku rideen oo kaliya ma ahayn niman dagaal u jeeda oo haddii dagaal doonayaan ciidamadu aag bay fadhiyeen. waxay doonayaan marna la yiraahdo guri barasaab wax ku rideen marna la yiraahdo dawladda hoose ku rideen marna la yiraahdo saldhig wax ku tuureen. wallahi inaan cabsi gelinayno waxaan sameynayaan wax naga joojinaya inaan ka shaqeyno bulshada u shaqeynana ma aragtay ma aha marnaba naga duumayso wadada horumarka aan hayno bulshada sideeda ugu shaqeynayna cabsina ma qabno wax dhibaato u dhacay mala waxaan boonborinay. waxaan arkay wasiirkii warfaafinta Puntland ka hadlay oo leh shacabka Laascanood baa laayay qof shacab oo Laascanood laayay ma jirto aan ahayn inanka gaadhiga saaraa bajaajta watay ummadii reerkiisu shaqaysanayay ee xabadda gardarada saraarada halka ugu tagtay. ugu dambeyn balasaabka oo fariin u diray waalidiinta wuxuu ugu baaqay inay ka warhayaan ubadkooda nabadgelyo darrada ka sameynaya gobolka. waxa uuna sheegay in ciidii dambe ee lagu qabto howlo noocan oo kaliya loo gudbin doono xabsiga. maanta kadib yeelimayno baanbax dhalinyarada haddii reeraha digniin baan u diray waalidiinta haddii dhalinyarada carruurtooda haysan waayaan aan u dadaalayna inaan waxbarashadooda iyo nabadgelyadooda ka shaqeyno. haddii haysan waayaan waxaa ballanaa mar dambe haddii ay dhacdo baanbax dambe noocaas ah wixii aan usoo qabanno inaan mandheero ka shaqeyno taasaa ballanaa. hadda waxaan digniin siinayaa maanta wixii xidhan waan sii daynayna waxa dambe inaan la sii daynayn ma ballan qaadaya. Mawlid Ali, Star TV, Laascanood.